waxaan joognaa jaaraha dugsiga jaaraha hoose dhexe oo ku yaala deegaan aad u ballaaran arday badanna ku jirto kana kooban 8 fasal maanta hor joogno macallimiintooda halkan oo ay soo tahay gabadha la yiraahdo Sucaad Mustafa Qaadi ilaahay khayr siiye oo u soo deeqday buugaga adarkaysaan oo anfaca dugsiga hoose oo barnaamij Ingiriisi ah kuwa kale ee dictionary macluumaad ka faa'iideysato kalaaska sideedaad oo soo Ingiriis ka dhigta oo u baahnaa laakiin ay haysay baahi buugaga maanta baahida buugaga way ka kaaftoomeen waa kan halkan joogno oo bixinayno oo gacanta kaga ridayno maamulayaashii anigoo ah maamulaha dugsiga hoose dhexe magaalada Jaraarooto ugu horeyn Ilaahay baa mahad leh mar labaad waxaan si weyn ugu mahadnaqayaa guud ahaan jaaliyadda gaar ahaan waxaan si gaar ah ugu mahadnaqayaa Sucaad Mustafa Qaadi oo noo soo dirtay hadiyad aan aad iyo aad ugu baahnayn oo ah buugaag siba galaasyada sideedaadka iyo toddobaadka hadiyada oo nooga keenay Ciise Ibraahim Faarax aad baan walaalayaal ka gudoonay waxaan Ilaahay idinka rajaynaynaa halkaad ka soo saarteen in Ilaahay wax khayr leh idinku bedelo inta haddii aan sii dhaafo dugsigani haddaan warbixin idinka siiyo waa dugsi hoose dhexe wuxuu ka kooban yahay 8 galaas markii hore waxa uu diiwaan gashanaa 148 arday iyo ulada oo imiga fasalka koowaad oo imiga socda gaar ahaan aad baan xaqiiqan u fiicanahay waxaan mar labaad iyo mar saddexaad iyo mar afraad ba mahadnaq u jeedinaya walaalaha iyagana damaqsaday Saleebaan iyo Maxamed u gudbiyay walaalaha iyaga jaaliyadda ah baahidayada u bandhigay dabadeedna si adag ay noogu soo jawaabeen imikana aan ku rajo weynahay ilaa dugsi sare inay naga caawiyaan walaalayaal waxaan aad iyo aad idinku mahadnaqanaa idinkiyo Ilaahayba hadalkaygana waxaan ku soo gabagabeynayaa wax Ilaahay yoona naga dhigin kuwii hadalkiina khasaariya maamul macallimiin iyo ardayba سعاد مستشفى قاعد أبغى كمان كنت أنا ساعة قلت سكرين بس. كسر راسه سعاد إحنا كده كلاس كي نروح نمهر نقنا ولا سعاد مستشفى. ما كنت يشعر في مستشفى صدق شخص سكينة وحنا بقيا ولا شيء بقول ما كنت. سعاد قاعد سعاد مستشفى قاعد. أدوس. اللهم خير حسن وحنا نحب سعاد مستشفى قاعد. وبوقت النصر. aniga oo ah Jimcaale Cali waxaan u mahadnaqayaa Sucaad Mustafa Qaadi oo joogta dalka Ingiriiska oo noo soo caawisay Ingiriisiga oo aad iyo aad ugu baahnayd